Soomaaliya soo ma ogidin 68 69 meelahaasi dhowr iyo 80 xisbi baa ka jiri jiray 82 xisbay ku galeen doorashada marka ay yimaadeen baarlamaankana ma taqaanaa laba xisbi quray noqdeen labada xisbi midnin quru ahaa cabdirasaaq oo qura xisbi kaliya ahaa dabka iyo dhagax 120 galana su'aal bay galeen waa su'aal uu wax lagu cuni karay يعني مبادئ ما يسيدنين وحن بو ربي غير كودا انه كسو بخون بو حسبي كانوا سو قاطي هداد ما انت ديبو علي صوت لاحظه ان ديمقراطيه دي بين السماين ان هي كم بين السماين ان هو نفس الشكل وهذا عسب اسمه بدلس اذا وحن لنا هدين ربنا مجالات كريرها اني كتعاون كران ايديولوجي وين لو بدلها نبي محمد عليه الصلاه والسلام قبائل كمو بابين مو ترترل لكن وحي رميسنايين مو بدلي وحي رميسنايين ايو بدلي دبتنا وحي اسبدلي نقمكو ريركو لها وحي رميسنايين لكو انصر اخاك الظالم انه مظلوم بين رميسنايين walaalka gariya gardarraba u hiili nabi maxamed nabi qabuuli walaalka gariya gardarraba u hiili way fahmi waayeen saxaabadii markaa weedhatan waa weedhay isticmaali jiray maxaa looga jeedaa nabigu uu sharxay u cudi waxaad ugu hiilinaysaa hadduu xaq ku taagayna u hiili hadduu gardarro ku taagayna gacanta qabataasa hiili ka qabo wax diray warka joog dadka ida waxay leenahay waxaynu u baahanay koow ahi si majaalka tacaawunka uu yimaado inaynu mabaadi' reeraha u geyno oo saxno mabda'a koowaad ee waxaan bedeli karaa qabyaaladii ugu fool xumayd carab bay ka jirtay mabda'ii koowaad ee lagu saxayna wuxuu ahaa mabda'an islaamiga ah majaalka koowaad aynu leenahay aynu ka tacaawuni karnaa waa inaynu diinteenna dib ugu noqonno oo ummadeenna dib caqaa'idoodii iyo afkaartoodii u saxno wax labaad aynu u baahnay ka Soomaali waxa weeyaan intaynan dowladnimo dhisanin مجالك الإصلاح إنه إصلاحنا غيره نبت كتحرادنا ضد الله وحما وضيالا كرام ضد السياسة اسمها وحما وضيالا كرام وحنو بهنا إنه الصلح الدوب أبوري كرنا وريرهم نبت أي هلي كرام ويهشيس هلي كرام ووحا أي سكو هيان دقيدو ديو ويلكو داي كوضا هدلا haddii aynu dhaano may taa ka wada hadli karmayno loo taakelimay maxaa loo taakelay dawladnimada aynu wada yeelanayna dawladnimada waxaynu wada leenuun inta aynu hubinayno cidda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka inta yeelanaysa shir haddii Soomaalida loogu dhaho way daamanaysa waayo reer waliba wuxuu guri ka qabaa inta uu sarreysay inuu boobo laakiin maalinta la farziyay ay soo baxday hebelawa uu madaxweyne hebelawa ra'iisul wasaare intii weyday weynay caga ku dhigtaa saani dawladdu noqonin ila reer hebel ba xoogaysanay hadii dawlad ka balod markaska daaru taqwa quraanka kariimka higada culumta shariicada luqada carabiga iyo tarbiyada awlaada hab casri ah online wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda la noqotay waxa uu arkaya war reer hebelnimo xoogaysanaysa marka waa inuu caga qabtaa saaniga socodin idan inaynu dawlad ka warrano waxa ka horeeya inaynu bulshadan islaaxino oo heshiiyaan oo bini aadamku saddex wax mid uu ku heshiiyaa markuu isu yimaado saddexda shariicada islaamigana way qiraysaa ta bini aadamku aqligiisa ka qorayna waa qiraysaa kow in la iscafiyo inta la heshiiyo la wada hadlo la garnaqsado la iscafiyo waana dhaqan Soomaalida hore u taqaanay waa dhici karaa in sulxi la sameeyo sulxigu waa compromise in la isu tanaazulo oo cidana waxaanay ka kacdo cidana waxay ka kacdo meel dhaxal la isugu yimaado lagu heshiiyo iyo in muhaakama la sameeyo in lagu kalsooniyo loo saaro loo garnoqo oo cidii gardaran la yiraahdo gardarantay oo garta lagu noqo saddexda dariiqada binaadamku caadina wuu yaqaana shariicaduna wayna fartay idan waxaan leenahay waxa koowaad ee majaalka ee tacaawunku ka bilaabmi karaa waa xasaasiyadkan qabaligiisa ay u joogsan karaan waa in bulshada dhexdeeda heshiis laga raadiyaa haddii islaaxu uu dhaco oo heshiisku yimaado xuruubta joogsanaysa tadaafuca joogsanaya wax badan oo markaa la tacaawun kara baa imanaya كلبات أما صدحات عن تلمامي وحويان مجال كالتنافس إن وجهدي ساما ما يشوش يد الله صحو
bini aadamku loolanka noloshu ka mid yahay bini aadamku wuu loolamaa laakiin waxay isweydiinta le maxaynu ku loolamaynaa ma inaynu isdilno ma inaynu isyasno ma inaynu isboobno ma inaynu isxaqirno mise waxaynu ku loolannaa wax waxaa ka gedisan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wicaagii qabaliga ahaa ama weelkii ama yunitkii qabiilka muu duminin laakiin wixii mabaadi' asmaa buu sameeyey mabaadi' waaweyn ay rumaysan yihiin oo iyaga ku loolamaan khayrku ku loolansiiyey jihaad bay ku loolameen meel saray ka fakereen oo aan ahayn reerkan yar iyo waxa kan ee reerkii wuxuu ka fakeray inuu dunida mas-uuliyadi ka saarantah makhluuqa ilaahay abuuray oo dhan inuu reerkan yari uu mas-uuliyadi ka saaranto inuu diinta gaadhsiiyo reerihii yaraayee mas-uuliyaddaa qaaday ayaa diintan aad arkaysa caalamka gaadhsiiyey iyagoo reerahooday dagaalka galeen dagaalladu markay adkaadaan khaalid bin waliid markuu yamaamo u taag waayey waar waa isu kay dhex gasheene kala baxa buu ku yidhi reer walba dhan dagaalka ka gal reer bani xaniife saasaa lagu jebiyey inuu koox walba muhaajiriin iyo ansaar dhan u saaro reerahan kalena uu dhan u saaro tanaafuska wuxuu nebigu ka geliyey calayhi salaatu wasalaam fi lkhayr hadda meelaha soomaaliya nabadda ah ama waddankii dhulalka nabadda ah waxaad arkaysaa reeraha qaarkood oo ku baratamaya waddooyin la dhisa iyo masaajid la samaysta iyo caynkan waa nooc min alkhayr waa unity jira oo wax ururin kara oo wax isku darsan kara oo wax samayn kara laakiin meesha loo jeedinaya inay noqoto meel khayra wax wanaagga inuu dadkani ka shaqeeyaan idan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu u saxay majaalkii ku tanaafusayeen ama loolanku meesha uu ka imanayay oo ah in reeraha kani wax khayra ay ku tanaafusaan laakiin inaan ugu tanaafusin in la isdhaco ama la isboobo majaalaadka u baahan inay reeruhu wax ka beddelaan oo ka tacaawunaan waxaa ka mid ah majaalka xukumka iyo xeerka ku saabsan culimmadii soomaaliyeed oo hore nin ka mid ah oo ashari ahaaba afartannadii kontonnadii soomaaliya dib ugu soo noqday deetana wuxuu arkay xeerarkan qabiilka iyo libta haysa ilaa 3 kitaab buu qoraa filaya xeer iyo waxaa ku saabsan raggaa soo gaadhay nin culimmada waaweyn ee soomaaliyeed ka mida baa soo gaadhay ninkaasi xeerkii reerkoodaba uu ka baxa maxaa sheekh dhacayo intaan isugu yeedhay buu yidhi reer hebel odayadoodiiba waxaa yidhi reer hebelo maanta waxaan idinku yeedhay anigu maanta laga bilaabo xeerkii reerka waan ka baxa dadka la dilayo dhiiggooda idinla qaybsan maayo waxaana wadaan oo dhan waa baatil xeerkiina waan ka baxay xeerarka reeruhu in dib loogu noqdaa bay u baahan yihin oo ay ku noqdaan waayeelka iyo aqoon-yahankooda iyo dadkooda aqoonta leh oo la saxo xeerarkaasi dulmi badan baa ku jira dad wax magarataa baa dejiyey wax magarata markaan leeyahay caqliga may lahayn sharcigay la'aayeen saa daraaddeed xeerarka reeraha dhexdooda in isbeddel lagu sameeyo oo loo guuro in dadku sharci uu qaato inuu dadku sharciga qaato waxay fudaydinaysaa taasi inay xasaasiyaadku yaraadaan waxay fudaydinaysaa inuu yaraado fa'riga kan iyo maxaa la yidhaahdaa gardarradan dadka lagu laynayo waxay fudaydinaysaa maalan tusaalaan ku siinaya nin baa wax dilaya dabeetana reerkoodii isagoo gardarro wax ku dilay ximaaya bay siinaya xagga dambaa la iska marinayaa waxaa la leeyahy reer hebelow dee mag baanu idiin ogolleh haddii kale waxaa samayn kartaan sameeye magtu reerku waa ku qasbayin inay dagaalamaan iyo inay mag qaataan magtay qaadanayaan magta markay qaataan dhib kalea isna reerka gudihiisa ka jiro magta lama siiyo dadkii agoonta yareereeda aabbahood la dilaye reerkaa tiina qaybsanaya isaga wax yar baa la siinaya inan yar baa soo koraya oo aabbihii la dilay oon adduun laga siin oo aan loo dilin oo waxba xuquuqa lahayn ninkani isagu markuu soo qaan gaadho uu hubka qaadan karo waxay kaga go'antaysna inuu mid kow kaga siiyo ila isba aabihii la dilayay magna lagama siin at least compensation diyadani waa compensation hadduu qofku compensation aabihii markii la dilay uu heli lahaa waxaa laga yaabi lahaa inuu sabri kari lahaa inuu xun kiina reerkaa qaybsaday idan haddii la rabo
xasaasiyadan aan hadhaynin ama qofkan wax dilay qof kale laysaga dilayo asbaabo badan qofkii oo la waayo dabada la geliyey ama iyaga agtooda ay odhanayaan maya nin inugu weyn moo haya kani uma dhigme oday hebel baynu ka dilaynaa oo kii wax dilay inta la dhaafo ku kale la dilayo waxaasoo dhammi waa xeerar u baahan in la bedelo yaa bedelaya waxa bedelaya aqoon-yahanka iyo culammada iyo salaatiinta iyo ummaddu haddii la bedelo xeerarkaasi waxay fudaydinaysaa in nabaddu soo noqoto waxay fudaydinaysaa in dadku nabad ku wada noolaan karo soomaalida haddaadan joogta qabaa'ilka qaar baa isku dayay inay bedeleen oo wax ka qabtay kuwii wax ka qabtay nabad bay ku nool yihiin waxay yaraaday dilkoodii waxay yaraaday dhibtoodii kii iyaga loo geysanaya kii ay dadka u geysanayeen ma uu yaraado isla beeraha halkaa wadaadega jiliba ka mida iyagu diiday waxay dhahay waa nin reer hebel intaanu soo qabanna hala dilo odhan mayno weli dilkii sidii buu ugu socdaa intay aakhiro u direen maa weli tiro badan sababtuna waxa weeyaanuun waa xeer xumada tan haddii xeerkan la bedelo wax kale wuu joogsanaya idan waxaan leenahay majaalka laga tacaawuni karo ee aan u arko inuu wax bedeli karaa waa in xeerkan la bedelo si uu isu bedelo waxa kani meelaha laga tacaawuni karo ee xeerkan hoos imanaya waxaa ka mid ah dadku haddii xeerarkan dulmigu ku jiro la bedelo uu cadaalad dareemo noloshu way fududaanaysa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu isku dayey cadaaladda dadka inuu ka simaa gabadhii qurayshiyadda ahayd ee tuugada loo qabsaday qurayshi way qaadan kari weyday waxaa la yidhi aan nebiga kala hadallo calayhi salaatu wasalaam inaan gacangoyntan lagu fulinin aan kala hadallo oo iyo nebi moxamed aan u dirraan la hadli karaya baa la yidhi waxaa la yidhi ninuu aabbihii jeceliyey oo isagoo jeceliyey baa jire ninka aan ku dayno cid kale loo diri kari maaye ma aha tolkii nebiga iyo qabiilkiisii waa usaamata bnu zayd baa loo diray oo la leeyahay kala hadal nabigu calayhi salaatu wasalaam nebigu wuu ka cadhooday maxaad ilaahay xuduuddiisa ka midaad ka shafeeca qaadaysaa buu ku yidhi dabeetana nebigu wuxuu sheegay dadkii idinku horreeyey waxay ku halaagsameen hadduu wadiico amada ka liitaa hadduu qaanuunka buriyana waa lagu oogayey shariifku hadduu galana ninka magac iyo maamuus iyo caynkanina waa laga cafinayay idan dadku hadduu cadaaladda u sinmo waxaan tollaayayda qofka ku kalifaya waa maxay wuxuu la'yahay meeluu cadaalad ka helo hadduu qofkani dowladnimadan iyo waxaa la sheegaya hadduu cadaalad ku og yahay muu tollaayay yidhaahdeene booliskuu tegi lahaa u odhan lahaa qofka ba wax iga dilay laakiin markuu isleeyahy ka booliska haystaaba mid reer hebelah oo kalsoonidu ay ka maqan tahay marka uu rumaysay inaan xeerku u sinnayn isaga iyo inta kale waa inuu cid difaaci karta uu yeedhaa inta aanay cadaaladi jirinna qabiil waxba kama qaban karaysi ama qabyaalada waxba kama tari karaysi waayo qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo xoolihiisaba iyo cirdigiisa iyo sharaftidiisa waa inuu nabad ku helaa intaa marka wuxuu nabad ku heli karaa marka uu rumaysay in cadaalad ma lihin dunuubtaa maranayso qof wax dilaa la waaya ama qof wax xadaa la waaya ama qof wax dhibaa la waaya ma lihin laakiin haddaad og tahay inaanu cadaaladda ka baxsanaynin waa wax fudud marka laakiin markaad ogtahay in xuquuqdaada lagu xadgudbo iyo waxaaga qofkii inaanad cadaaladda qabadsiin karaynin idan majaalaadka reeruhu ay ka tacaamuli karaan waxaa ka mid a inay u hoggaansamaan in cadaaladda dadka laga simo oo reerku hadduu waxgeystana in cadaaladda lagu oogo haddii cid kale ay waxgeysatana in cadaaladda lagu oogo taasi hadday dhacdo waxaa soo noqonaya kalsoonida iyo is-aaminka iyo in dadku isku kalsoonaado waxaan leenahay waxaynu u baahannahay hadda dadka kalsoonida ka wada dhinsan oo waxaad si leedahay haddii mid reerkiinnii meesha qabsadana waxaad si leedahay xuquuqdaada waayi maysid saasaa kaa dhaadhacsan haddii laakiin reerkii aysa hayseen uu meesha qabsado waxaad si leedahay adiga dee shadaaftaa lagu laabaya waxba kuuma hadhsana marka waa inaad dumisaa
dowladnimada marka aynu haysanno ama dadku uu ku yeedhayo nidaamkeenna qabaliga aynu u noolayn iyo addawla alxadiida isma gelayaan sababta aanay isu gelaynin koowaadna waxa weeyaan addawla alxadiida waxay rabtaa inay iyadu hubka haysato oo shacabku aanu hub haysanin waxay rabtaa inay iyadu dariibo qaaddo cashuur qaaddo oo dadkao dhan ay ka soo qaaddo waxay rabtaa inay iyadu dadka matasho oo tamhiilka diblomaasiga iyadu yeelato adiguna ka qabiil ahaan haddii dowladda nin reer hebele qabtay waxaad leedahay dhowr waxba waan waaye kow askarta hadduu isagu yeesho dee wii gubaysanayaa marka waa inaanu dowladdiisu kicin hadduu dhaqaale helo oo iga dhaqaalo bato wii gubaysanaya waa inaanu dhaqaale helin intaasoo dhan xataa haddaa u sinnaataan waxaad leedahay dee reeru way isu faanayeen reer hebel weligiiba madaxweyneha ma qabanine madaxweyne qabashadu waa tashriif buu u arkaya dee reeruhuna bays waxa uu ahaa attafaakhur in laysu faano markaa faankii baa laydinka helaya marka waa inaad ogolaanin si aanu faanka kaaga helin waa inaad ogolaanin inuu meesha tago idan dowla alxadiida qaabkan ay u dhisan tahay iyo muctaqadaadka qabaliga aynu rumaysannahay isma waafaqayaan iyadaana iswaafaqay maynana waxaynu qaadanay caqli odhanaya 4.5 iyo 5 iyo reeraba in wax loogu qaybiyo way adagtay inay labadaas iswaafaqaan waa waxaan suurtagal ahayn idan waxa suurtagalkii waxa weeyaa maan leenahay dadkan kalsoonidooda in dib loo dhiso in mabaadi' laga dhaadhiciyo ay wada halgamaan waxay u tanaafusayaan inuu tanaafus khayra noqdo oo khayrka lagu baratamo dadkan inuu cadaalad wada helo oo cadaaladdu ay ka sinaadaan qadaayaadkaasi haddii la helo waxa fududaanaya inay bulshadani bulsho wada nool oo wada dhaqanto wax wada yeelata ay noqoto majaalaadka in la xaqiijiyaana wakhtina way u baahan tahay meesha xanuunku ku jiro in la abbaarana way u baahantahay dadku inta badan waxay u calaacalsan yihiin xagga madaxtinimada iyo xagga baarlamaanka iyo xagga dowladnimada dhismi mayso tii horena way duntay kuwii ka horreeyeyna way is haysteen maalin walbana hinbaa ciil qabaysa haddaan lan beddelin dadkani siduu u fakerayo iyo aragtida ay rumaysan yihiin iyo waxa lagu dhaqmayo haddaan la beddelin walidaalika ayuha alikhwa teenna tuka adag buu nebi maxamed beddelay calayhi salaatu wassalaam teenna qabyaalad ka adag oo ka dhib badan oo haddii aan ka sheekayno gabayadoodii waxay rumaysnaayeen siday u fakerayeen qaabkay wax u arkayeen waxaad sodhanaysaa uun qolo soomaaliya ahayd qolada meeshan degganayd laakiin dowlad dunidoo dhan ka talisa nimankaa lagu beddelay waa isla iyagii cumar binulkhadaab oo cumar binulkhadaabkii jaahiliyadana noolaa abu sufyaan waa abu sufyaankii jaahiliyadana noolaa maaha dad cusub hataa dadka badh baa jiilka yar ka fakeraya nebi maxamed cafuur malcaamad kuma darin intuu malcaamadu furto isma odhan yararkani ha kuu soo koraan kuwani kolley waxba iska beddeli maayaane marka kuwan yaryari soo koraan kuwa waaweyn buu la dhaqda odayaal waayeel salaadiin cuqaal aqoon wixii waddanka joogay ee dad ahaa kuwaas baa la isku jigareeyey bini aadamka markaa waa asiiru muctaqadaati waa sida uu wax u arkayo hadda waa la barbaariyey oo waxaa lagu barbaariyey reernimo reerku inuu magac leeyahay maamusinaa leedihiin reerkiinnu inuu weligiiba reeraha kale u tarin jiray inaa idinku haddii inteenna halkaa fadhida nin walba la yidhaahdo bal reerkiinna ka sheekeeya wixii laguu sheegay waxay u badan tahay ninna inaan loo sheegin beri reerkoodu jabay nin waliba wuxuu hayaa intii goobooda reerkoodu guulaystay gabayadii ay tiriyeen xoolihii ay reeraha kale ka qaadeen laakiin intii iyaga xoola laga qaaday ama la jebiyey ama sheekada kuma jirto laguma soo sheegay marka nin waliba wuxuu haystaa reerkoodu inuu boqorrada waddanka ahaan jiray nin waloo soomaaliyeed saas u rumaysay qabka iyo hankaa unbaana isla jiidhay xaqada jirtaa markaa waxa weeyaan waxaynu u baahanay cuquusha bini aadamku siday u fakeraysa inaynu bedelo ma aha inaynu idhaahno qabiilka ha la dumiyo reer ha ku abtirsanin waxaan hala wax kastoo aad beddeshaan waxba ma beddelaan bini aadamka waxa wax ka beddela waa siduu u fakerayo dimuqrasigana arkaysaan
iyo reer galbeedku saatan dimuqraadiyadda waxa ka horreeyey casru tanwiir waxay yidhaahdaan enlightenment waxay u bixiyeen qarnigii 17aad 18aad enlightenmentku wuxuu bedelay yurub sidii looga fakerayay ama sax haata ama qalad haata waxay ku bedeleen kama warramayo laakiin waxaan tilmaamaynaa dimuqraasi ma kicin ilaa iyo yurub siday u fakeraysay iyo cuquusheeda la bedelay markii la bedelay kadib ayaa hanaankani uu noqday hanaan jiri karo sugmi karo socon kara hanaankan qaadanaya iyadoo dadka waxba laga bedelay suurtagal maaha dimuqraasiyaan Soomaali anfacaynay mabda kaloo dawladeed baan anfacaynay waxa anfacaya waxa weeyaan siday u fakerayaan iyo aqliyadda ay hubaysayeen iyo dunida siday u arkayaan wax iska bedelo hankooda wax iska bedelo nabi maxamedna wuxuu sameeyay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka dhigay hankoodii Ribci ibn Aamir nin aan dheerayn oo Italian faras yar oo gaaban wata oo intaasoo bilood dagaal ku soo jiray ayuu ahaa dawlad weyn baa wafti loogu diray Rustam baa yidhi ha laygu yeedho bal Sacd ibn Waqaas cidii soo uu u tegey Ribci ibn Aamir jaahiliyadiisii uu fakariyay hadda maskaxdiisu way ka gadisantay boqor baanu la kulmaya boqorku wuxuu ku yidhi maxay idin soo saaray aan xoolaydii siiyey hadday gaajo iyo waxaan tahay meeshii meel idinku dherginaya xoolaa qaato iska taga wuxuu ugu jawaabay ilaahay baa na soo saaray si aanu uga saarno الله أخرجنا به إلهي بانا سو صار سام دك وصارنا محي أدونك عديني سواء وآخر بل عيد وغرسينه أو ضيق الدنيا بانو كسارنا ساعة العشرة بانو جينا الجور الأديان بانو يعني وحو كف كريا ماها من قبيل كي رايا وكرنا شيء يو الرمه يسي كف كريا واني كف كريا دوني دنو يسبدل كسبايو خيروها أدي فكرة درفو بيسيين أدونك وحقا قبطاننا uma muuqanayo reerka yare miskiinka ay jaarka iyo nabaadkiyo biyaha wada cunaan ee waxbay wada raadcaynayaan hadduu hanka la soo gaabiyo Soomaalida hanku uu sii gaabtay marbaabay qoomiyadii wax ka fakarayeen imka hankaasi hoos buu sii socdaa halka uu marayaana waxa weeyaan tuuladay ku xigto inay ama federaal ka qaadato ama ka tagto ama ay ka fogaato tan ku xigta weeyaa maaha tii shishe laga soo yimi dadkan haddaanad hankooda kor u qaadin waxay ka fakarayaan haddaanu isbedelin majaalaadka ka tacaawunayaan isma bedelaya markaa haddaan caqliyadu isbedelin halkan wuxuu wiilkii dhalinyarada bilaabay ka akhrinayay in allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim qurayshi sidii bay quraysh u ahayd ansaari sidii bay ansaar u ahaayeen qabaa'ilka carbeed sidii bay qabaa'il u ahaayeen iyagoo qabaa'ilkiiya ayay dunidoo dhan bedeleen laakiin waxay ku bedeleen iyagoo wata enlightenment sharciya iyagoo mabaadi' sida ee aan feernimadoodii sidin iyagoo mabaadi' sida mabaadi'daas waxay soo saartay Qutaybah ibn Muslim al-Bahili ka dhigtay haliyeyga ugu weyn muslimiin uu noqdo ee bariba ka dagaal gala isagoo qabiilkiisii baahila yahay oo qabiilka gabayada ka tirinayna uu yahay inuu noqdo isbedelka waxa abuuraya marka aniga dariska waa laga yaabaa inaanan diyaar garow badan samayn oo si talteel aan u tilmaamay laakiin warkaygu wuxuu ku kooban yahay feeraha reernimadu kama baxayso iyo waxaynu raadinayno dhan dawladnimadu ma samaysmayso reerka dib u liqaya waxa qulay isbedelku ka samaysmi karaya waa cuquusha iyo qulubta bini'aadamka haddaynu kuwa bedelay siday u fakarayaan reerka dhami sidii isu fakarayay iyo isbedelka dawladnimada waa samayn karnaa sallallahu alayhi nabi muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin